السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي سود وادا waxaanu hore ugu soo jirnay oo qaadanaynay chapterkeeni sagaalaad ee ahaa Middle East conflict hadaba maanta waxaynu qaadan doonaa insha Allah biidnillaahi kariim 10 lixaad oo ah Iran Iraq war dagaalkani waxa uu dhacay 1980 ilaa 88 hadaba waxaynu ardayay ku baran doonaa 10keena sababihii ku keenay Saddam Hussein inuu dagaal kan qaado iyo waxyaabihii ka dhashay oo kale ardayga waxa laga filayaa hadii Ilaahay idmo marka uu 10 kan dhamaysto in uu garan karo sababihii ku keenay Saddam Hussein ama wadanka Iraq waan dhahnay inay weeraraan wadanka Iran sidoo kale in uu ardaygu sharaxi karo doorkii reer galbeedku ay ku lahaayeen Iran Iraq war ardayga waxa kale laga rajaynayaa inuu fahmi karo oo uu sharaxi karo natiijooyinka ka dhashay dagaalka Iran Iraq war arday halka marka aan eegno waxaan dhiganaynaa sidii horeba u soo sheegnay Iran Iraq war hadaba waxaan leenahay Saddam Hussein maxaa keenay in uu dagaal kan qaado marka waxaan dhigi karnaa waxa jira waxyaabo badan oo isbiirsaday oo Saddam ku khasbay in uu dagaal kan uu sameeyo sababaha waxa kamid ah Saddam waxa uu dareemay in Iran ay ka samaysantay maleeshiya islaamiga oo si xun u faafaysa si xawliya u faafaysa maleeshiyadaas oo ka soo faafaysa wadanka Iran hadaba cabsida uu ka qabay darteed Saddam si uu u cabsi galiyo waxa uu sameeyay 1980 in uu laayo hogaamiyayaal Shiica ah Iran ayada oo ka falcelinaysa oo ka argudanaysa arinkaas waxa ay weerar ku qaaday oo ay dagaal ku soo qaaday qolyaha la dhaho Iraq arinka kale oo ku keenay Saddam in uu dagaal kan galo waxa weeye gobolka la dhaho Khuzestan ee Iran borderka ah ayaa waxa uu yiri anaga ayaa iskale asay Iraq ahaan maadaama dadka degaa ay Arab yihiin marka wuxuu leeyahay Iran ay malihidin aniga ayaa iskale maadaama dadka dega ay yihiin dad Arab ah waxyaabaha kale oo dagaalkan ka qayb qaatay in uu dhasho waxa kamid ah waxa jiray khilaaf ragaadiyay oo soo jireena oo u dhaxeeyay wadanka Iran iyo wadanka Iraq oo ku saabsanaa khilaafkaas oo ka dhashay shatal Arab oo ah waterway hadaba horay waxa maamulka gacanta ugu hayay meeshan marka waxaan garanaynaa inay tahay xuduud marka waa transboundary waxa weeye waa xuduudka Iran iyo Iraq ay ku taala shatal Arab marka maamulka waxa hayay wadanka Iraq balse 5 sano kadib Iran waxa ay ku khasabtay Iraq in ay la wadaagto maamulka maadaama uu yahay soohdin u dhaxeeya labadooda marka waxaan garan karnaa in meeshaas wada maamulaan waxay noqonaysaa in khayraadkeedana wada qaybsadaan oo ay isla wadaagaan hadaba dagaalkii sidee uu dhacay Iran waa isa soo abaabushay ayadoo duulaan ku ah Iraq Iran marka ugu horeysay waxa u muuqatay in ay guuleysanayso Iraq maadaama ay Iraq haysato taangiyadii Soviyetka sidoo kale ay haysato maraakiib dagaalka iyo missiles oo agantaalada iyo diyaaradaha helicopterska balse taasi ma dhicin oo Iran waxa ay qabsatay soodinta ama dhul badan oo kamid ah wadanka Iraq ayadoo isticmaalaysa taageerada ciidan ee ay ka heshay wadanka China North Korea sidoo kalena ay si hoose uga heshay wadanka USA marka aynu leenahay secretly waxaynu ka wadnaa
iiraan waxa ay si toos ah ula safan tahay komunistaha haddaba in ay ogaado komunistuhu inay sidoo kale la shaqeynayso USA waxay ku keenaysaa dhabarjab oo halkaa waxay ku waayaysaa xulufada ay la leedahay midowga Sovieti ardayay haddaba maxaa dhacay ciidamada Iiraan 10 mayl ayay waxay u dirsadeen magaalada Ciraaq ka tirsan ee Basra Khomeini waxa uu ku dhaartay inuusan dagaalka joojinayn ilaa iyo inta uu ka burburinayo waa sida uu sheegay the godless Saddam regime oo wuxuu leeyahay kan aan ilaaha aqoon waa sida uu leeyahay moogta wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan burburiyo kan aan ilaaha aqoon Saudi Arabia Jordan Kuwait intuba waxay taageero u fidiyeen oo ay taageereen Ciraaq oo ay leeyihiin Ciraaq yes adiga ayaa saxan bal halka Syria Libya Algeria iyo Yemen ay dhaleeceeyeen oo ay cambaarayeen wadanka Ciraaq in uu noqday cidda koowaad ee dagaalka bilowday imika waxaan dhigan doonaa waxyaabihii dagaalka ka dhashay oo aynu dhahayno the consequences of the war marka aan fiirino waxyaabaha ka dhashay waxa koowaad oo ka dhashay waxa kamid ah in dagaalkan dhacayay uu ku keenay khalkhal shidaalka ay helayeen wadamada reer galbeedku haddaba waxaan ognahay shidaalka oo yaraada wuxuu keenayaa waxa la dhaho energy crisis waxaan u maleynayaa energy-ga iyo sida uu nolosha laga maarmaarka u yahay inaad si fiican ugu barateen maadada juqraafiga oo aad si fiican u garanaysaan haddaba 1987 dagaalku waxa uu galay weji kale maadaama ay bilaabatay in labada wadan midba midka kale uu weeraro caasimaddiisa waa caasimada wadanka Iiraan ee Tehran inay weeraraan Iraaqiyiintu sidoo kalena ay weeraraan Iiraaniyiintu caasimada wadanka Ciraaq oo Baghdad arrinka haddaba waxa ka dhashay geeri aad u fara badan waxyaabaha kale oo natiijooyinka oo dagaalka ka dhashay waxa weeye inaan midna aysan ku guuleysan ahdaafteedii oo aysan gaarin hadafkii ay dagaalka u soo gashay arrinka kale oo dagaalka ka dhashay waxa kamid ah ardayay in dagaalkani uu keensaday khasaare badan oo naf iyo maalba leh waxyaabaha kale oo dagaalka ka dhashay waxa weeye inaan la kala garan karin cidii guuleysatay oo mid walbaba inay sheegatay guusha oo ay tiri guusha aniga ayay raacday halka haddaba ardayay waxa inoo ku eg dagaalkeenii ahaa Iran Iraq war maadaama aynu intaa ku soo ilaysanay casharkeeni oo aad ku mahadsantihiin daawashadiisa iyo sida wanaagsan ee aad u dhageysanaysaan waxaan idinka filayaa inaad ka jawaabi doontaan saddexdan su'aalood ee fudfudud kow inaad garan kartaan waxyaabaha ku dhaliyay wadanka Ciraaq inay qaadaan oo weerar ku qaadaan wadanka Iiraan sidoo kale ardayda waxaan ka filayaa inay garan karaan doorka uu reer galbeedku ku lahaa dagaalkan Iiraan Iraq war ardayda waxaan sidoo kale ardayay idinka filayaa hadii Ilaahay idmo inaad si faahfaahsan aad u sharaxi kartaan natiijooyinkii ka dhashay dagaalkan hal intaas waxa inoo ku eg casharkeena lixaad iyo su'aalihiisi ardayay waxaan idin rajaynayaa guul iyo baraare waana ku mahadsantihiin daawashada casharkan